xaaladan way adag tahay shacabkan dawlad ma rabaan waxa weeye waa qayb kamid ah caburin waxaa jirtay in nin wariye ah dhinacana musaacadada ka shaqeeya oo ina coldoon oo muqdisho ka yimid mar alla markuu ka soo degay Hargeysa waa la xiray anigu tooga leh aawad dimuqraadinimadii anigu haddaan ahay marka dawladda jilicsan tahay muxuu sameeyay isagu muqdisho tagay wuxuu ka sheekeeyay wixii dhacay maninka farmaajo u heesay haye hees amaanta u qaaday laakiin aawad dimuqraadiyadii security wixii khatar ku haya waan xirina waxaad maqli doontaan kuwo badan oo facebookyada wax ku qora ama idaacado ka hadla oo yidhaahda dalkiina wuu xun yahay dalka Soomaaliya meel xun buu joogaa waa kuwii 28 sano dalka dumiyay ha dhageysanina kolba wad ogtiino mid NGO yar haysan jiray oo kolba ka dhigan madaxweyne tamay laga soo qaado ninkan la yiraahdo khayr saacid may dooran wuxuu leeyahay walaa doortay Soomaaliya doorto ayo hilkooda xitaan dooran wala magacaabay magaca madaxweyne farmaashan insha Allah taala ka wada xiriirina ya dadkii wax ku jiray ma ogtahay أنا كان عاوز لا هذا يسقط قادم ما عاوز يبي يشتري هو السيون إيجنا حلو أول نقول أنا كيرا مقالنا صاير NGO كيشقين شري نروش الرفجس يعني كونسل كسالف كيشقين على كنا لتشوي ما دايروي يعني كرسي أنا قلم الله صار حالتنا ويا ذكتها شعب كان دولة مرهبان وحويه واقف كميدة عبرين hablaheeni yaryaraaba looga heesiya xamar kuwa xamar tee yaryarna Facebook ku caaya waa khaayimin waa dulli waa waxa dankoodii dadkoodii u tagay waa inaynu Facebook ka dhignaa fidmo dad uriya oo xumaaday oo inaga xumaaday ka sheego waxaad maqli doontaan kuwo badan oo facebookyada wax ku qora ama idaacado ka hadla oo yidhaahda dalkiina wuu xun yahay dalka Soomaaliya meel xun buu joogaa waa kuwii 28 sano dalka dumiyay ha dhageysanina maxamed saad bare wuxuu yiri ma jeerta waa wariiri waxa la ilaha inuu wax dhinaca dhaxon ku reeb hadduu guntiga ku galo koomeel buu ka qaniini wariiriga anaga macawis ku dili doona insha Allah taala haddii joogsid